Sharma Boy oo xalay wacdaro weyn ka dhigay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka halkaasi oo uu ka dhacay bandhigii ugu weynaa ee abid ee la xiriiray munaasabadda 26 Juun. Boqolaal shacab iyo taageero isugu jira ayaa si weyn isugu soo bixiyay showgaasi halkaasi oo Sharma Boy uu ku muujiyay hibadiisa faneed isagoona heeso kala duwan ka qaaday goobtaasi. Inta aanan u gudagelin faahfaahinta qodobkayaga la xiriira muuqaalka showga weyn ee xalay ka qabsoomay waddanka Mareykanka, ugu horreyn subscribe inoo saar janalkan, sidoo kale la wadaaga asxaabtaada muuqaalkan haddii uu ku qanciyey si aynu u gaarno boqolaal qof oo ka mid ah shacabka inagu xidhan islamarkaana iyagu intooda badan halkani ay ula socdaan si daqiiqad warbixinada halkan aan kusoo gudbina ay u helaan. Sidoo kale laagare aad baan idinkaga mahad celinaynaa. Aynu guda galnay xilli weli ay soconayaan diyaargarowga dabaaldega iyo fantasiyaha 1 Luulyo ee dalka Mareykanka sanad kastana lagu qabto madxafka weyn si kor loogu qaado maalinkaasi ayaa haddana waxaa si xoogan xalay uga qabsoomay waddanka Mareykanka bandhig weynkaasi oo fanaanka da-da yar Sharma Boy uu halkaasi kusoo bandhigay hibadiisa faneed islamar ahaantaana heeso kala duwan halkaasi uu ka qaaday. Qaar ka mid ah taageerayaasha iyo sidoo kale bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka ayaa intooda badan u riyaaqay showgaasi iyo qoobka ciyaarka fanaankan kani oo lagu tilmaamay inuu ahaa mid ka mid ah showyadii ugu waaweynaa uguna xiisaha badnaa ee dalkaasi lagu qabto. fanaankan da-da yar ee lagu magacaabo Sharmaake Cabdinaasir Maxamed oo loo garan og yahay Sharma Boy ayaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn loo hadalhayay kadib markii uu booqasho ku tagay Mareykanka halkaasi oo bandhigyo uu ka sameynayo. Muddo hal bil oo Sharma Boy ku sugnaan doono Mareykanka ayaa la filayaa in 2 bandhig uu ku qabto magaalada Minneapolis ee ku taalo gobolka ay Soomaalidu ku badan yihiin ee Minnesota. fanaankan oo heysihiisa la arkay qiyaastii 3 sano ka hor ayaa horumar degdeg ah sameeyey, waxaana marar badan uu qabsaday hadalhaynta baraha bulshada iyo warbaahinta isagoo u muuqda in waxyaabo badan uu uga duwan yahay dhalinyarada kale ee fanka Soomaaliyeed ku jira. Sharma Boy oo isagu ka hadlay arrimo tiro badan oo la xiriiray heesihiisa raabka iyo ereyada inta badan faniga ah ee saasi ka dhex muuqanaya ayaa waxa uu sheegay in murtida iyo heesaha raabka ay yihiin kuwo siman, sidoo kalena raabka uu yahay markaasi mid ka mid ah hababka fanka Soomaaliyeed waayadan dambe loogu casriyeynayo. haddaba mid ka mid ah sababaha ay aadka dad badan ugu xidhan yihiin fanaankan Sharma Boy waxaa lagu tilmaamaa heesaha uu soo qaaday oo aad moodo in ay isdaba joog yihiin in muddo ah dhowrkii isbuucba hal mar waxaa soo ifbaxa hees cusub oo uu soo qaaday Sharma Boy, taasi oo loo sababeynayo sida ay u sahlan yihiin noocyada heesaha uu xusho. waxa uu mar walba heesihiisa saldhig uga dhigaa erey suuqeed iyo hadalhaynta dhalinyarada ee markaasi taagan. sidoo kale dhowaan Sharma Boy baraha bulshada waxauu ku sheegay in mar uu la joogay dhalinyaro ajaanib ah oo ay ku xujeysteen inuu qaado raab balse ay kadis ku noqotay. isagoo sharaxaya sida xujadaasi uga baxsaday uu yidhi raabka tooska ee laysku xujeysta ayaa meesha lala yimid, anigu waxba ima diyaarsaneen, waxaan dareema buu yidhi in nin weliba uu wax soo xifdiyey. marka aan arkay sida ay wax u akhrinayaan waan isdejiyey, waan u fikiray, waxaan ku badbaaday maadaama aysan iyagu luqadeena garanayn in raab aan ka dhigto bata jaaxa iyo wax la mid ah. waxaa meeshaasi ka marneen in uu hibo u leeyahay alifitaanka ereyada ee laxanka uu ku laro heesihiisa. waxa uu kusoo aaday xilli dhalinyarada baraha bulshada ay si weyn u isticmaalaan shabakada TikTok oo sanadihii dambe noqotay mid si fudud loogu faafiyo mawduucyada hadalhaynta abuura. si ka duwan fanaaniinta soo baxaya ee Soomaaliyeed, Sharma Boy waxaa isagoo muddo kooban fanka ku jira waxuu ku guuleystay abaalmarin uu kula tartamay fanaaniin kale oo caalami ah. sanadii 2021 ayuu hantay abaalmarinta xiddiga fanka ee lagu magacaabo African Entertainment Award ee Mareykanka, waa biladaha madadaalada Afrika ee Mareykanka oo sidoo kale loo soo gaabiyo AEAUSA. munaasabadan lagu bixinayay biladaasi ayaa lagu qabtay gobolka New Jersey ee dalka Mareykanka. dad badan ayuu uga yaabsaday Sharma Boy in abaalmarintaasi ku guuleysto isagoo ku sugan Soomaaliya, halka fanaaniinta kale ee la loolamaysa qaarkood ay saldhig ku lahayeen dalka Mareykanka. 11 fanaan oo la loolamayo Sharma Boy ayaa intooda badan kusoo bixi waayey, isla markaana isagu ka mid ahaa dadkii halkaasi inta badan ka helay taageerada ugu weyn ee la xiriirta abaalmarintaasi. arrin kale oo Sharma Boy uu ku noqday mid ka mid ah fanaanka uga duwan ayaa lagu tilmaamay in fankiisa uu kusii siyaaday oo ka dhismay waddanka Zambia oo in muddo uu ku sugnaa. waxaa horey loo yaqaanay in fanaaniinta Soomaalida ee aan dalkooda hooyo joogin ay saldhig ka dhigtaan wadamada geeska Afrika sida Kenya, Uganda iyo Ethiopia. waxaa intaasi u sii dheereed Sharma Boy in uu heeso la soo qaaday fanaaniin reer Zambian ah
heestaasi oo weli kasoo guuxayso dhegaha dadka fanka saaxiibka la ah ee markaasi la magac baxday ma soconnaa iyo heeso kale oo uu la qaaday fanaanka u dhashay Zambia rock Jizzy Ziggy loo yaqaano, kaasi oo ka tirsan kooxda Dope Boys. hadda waxaa la dhowraba waa in uu qabsoomo bandhiga ugu horeeya ee Sharma Boy uu ku qabanayo Minneapolis. inkastoo xalay uu ka qabsoomay halkaasi, haddana diyaargarowgiisa laga dareemaya baraha bulshada bandhigyo aad u tiro badan oo la filayo in Sharma Boy uu ku qabto gudaha dalka Mareykanka, halkaasi oo la filayo in uu si weyn ugu soo bandhigo heesihiisa kala duwan ee uu horey u alifay islamarkaana YouTube-ka ku jira si uu ugu gulgilo qaar ka mid a bandhigyada halkaasi lagu qabanayo. Sharma Boy oo ka mid ah fanaaniinta waayada dambe aadka looga daba dhacay ayaa ilaa imika dadka maanka iyo maskaxdooda si aad u qabsanaya, siiba saacadihii ugu dambeeyay oo baraha bulshada uu si xoogan ugu qabsanaya. taageerayaasha Sharma Boy oo goobtaasi markaasi kula mashxaraday islamarkaana waqti qurux badan la qaatay ayaa waxa uu hadal kooban oo uu ka sheegay bandhigii ugu koobaad ee halkaasi uu ku sheegay. waxa uu yidhi, waxaan aad ugu faraxsanahay in aan waqti qurux badan la qaato dhalinyaradan Soomaaliyeed ee leh wiilal iyo gabdho, isla markaana ay tahay waqti aad u qurux badan, isla markaana nasiib ay tahay inaan la kulmo. waxa uu sidoo kale Sharma Boy uu farxad ka muujiyey imaatinkiisa wadanka Mareykanka, waxaana uu sheegay in muddada uu joogo waqti uu la qaadan doono qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadankaasi ku nool. Sharma Boy oo ereyo kala gedsan inta badan adeegsada, siiba heesaha uu inta badan kusoo caanbaxay oo erey bixino aad u kala duwan uu kusoo qaato, ayaa waxaa imika si aada loo hadalhayaa hees saacadihii aynu kasoo gudubnay uu markaasi lasoo geliyey, islamarkaana ka mid ah heesaha cusub ee Sharma Boy uu qaaday, heeskaasi oo loogu magac daray America. heeskan oo muddo ka yar hal maalin ku jirta amaba 19 saacadood imika ku jirto, Sharma Boy waxa uu gaaray 233,000 oo markaasi daawadayaal ah oo heeskaasi aad uga falcelinaysa islamarkaana daawatay. waxaana tani ay ka dhigaysaa iskoor aad u weyn in heeskan imika marka uu ka degay wadanka Mareykanka uu dib u soo saaray ay noqon doonto hees markaasi saameyn yeelato, dad badanna ay aad uga falceliyaan. Sharma Boy oo fankiisa ku bulaalayo qaybo ka mid ah wadankaasi Mareykanka, gobolka Soomaalidu ay ka degto ee Minnesota, ayaa la filayaa muddada uu halkaasi joogay in sidoo kale albumkiisa xiga in uu soo saaro, sidoo kalena uu heeso raab ah oo kala duwan uu la qaado fanaaniin ajaanib iyo Soomaali isugu jira, kuwaasi oo halkaasi ku sugan. sidoo kale waxa uu la kulmay fanaaniin aad u tiro badan sida Nimcaan Hilaac, Farxiyo Kabayare iyo sidoo kale Dalmaryare iyo qaar ka mid ah fanaaniinta North America, kuwaasi oo saldhig u ah wadanka Mareykanka, si diiranna u soo dhoweeyey Sharma Boy. Sharma Boy ayaa waxa uu sheegay in uu heeso cusub la soo saari doono qaar ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed ee halkaasi ku jira, fankana kaga soo horreeyey, si uu ugu muujiyo taageerada iyo in markaasi ay sharaf iyo cizo u tahay in uu kasoo muuqdo ama ay kasoo wada muuqdaan heese ay kula jiraan fanaaniin kale oo asaagiisa